السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا خلينا نشوف نيوز قضبة عاو وركنت كده ودو تنو حكمنا. حولنا الدولة فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماجة يا كقب كلام مقالة مكة دلك السعودية كل دقدقة يكويشن جامعة عربتا. الدين ولسه لقى بحني على استقرار لين كرتام مصنعة مدح دلك الصومالية دمع دلك كينيا. رئيسها دلك الصومالية حسن على قارة يا صاحر امتحان كشهادي قاعد دوكسيد سر دلك. سفير كمراكن كوفر دلك كينيا أيا كوجا جالس مدح وصر دلك كينيا كنت المملكة وتوجه بوي بدا الصومالية. hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay markii magaca la soo gaabsay UNHRC ayaa sheegtay inay ka soo daadguroonayso dalka Yemen qaxooti fara badan Soomaaliya tiradooda gaarayso 4300 iyadoo sanadkii 2017 dadkaasi ay isku xushan in dib loo soo celiyo. Wiil dhalinyaro ah ayaa maanta kooxo bistolada ku hubaysan waxay ku dileen xaafadda KBB ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Wariye Cali Aadan Muumin oo ka tirsan Goobjoog Media Group ayaa maanta xabsiga laga sii daayay kadib maalnimadii Arbacada maxkamadda gobolka Banaadir la horgeeyay. xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadashay saraakiisha ciidamadeeda ka tirsan maamulkoodii oo u goosanaya maamulka Puntland. Naga daawanaysaan waa qodobada qaranjoog news. Haddii aad doonayso fadlan subscribe, like, share, hala socdo.